waxaa ka soo baxay wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ee dowladda federaalka ah warmurtiyeed lagu sheegay in dhammaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu ay laba maalmood ku lahaayeen magaalada Muqdisho kulan looga shaqeynayay fulinta mashruuca ka jawaabidda xilliga dhow ee xaaladda degdega ah. dowlad goboleedka Hirshabelle waxay uga qayb gashay shirkaas si niyad wanaag ah iyadoo daneynaysa in si cadaalad ah wax loogu qabto dhammaan dadka Soomaaliyeed ee abaaraha iyo dhibaatooyinka bani'aadanimo saameeyeen. waxaan isku daynay in si niyad sami ah u tilmaamno khaladaadka iyo cadaalad darrada ku jira barnaamijka la soo bandhigay wasaaradda gargaarka ee heer federaalkuna iska indhatirtay. abaaraha iyo dhibaatooyinka bani'aadanimo waxay saameeyeen dhammaan waddanka oo dhan waxaana loo baahan yahay in si caam ah loo wajaho. waxaa nasiib darro ah in wasaaradda gargaarka ee heer federaal soo bandhigtay barnaamijkan ku salaysan xaaladda dhabta ah ee bani'aadanimo ee waddanka ka jirta iyadoo soo bandhigtay barnaamij lagu takoorayo deegaano qaarkood sababo siyaasadeed iyo cadiifad qabiil darteed. haddaba waxay dowlad goboleedka Hirshabelle cadeynaysaa inaysan la qaadanin go'aamadii ka soo baxay kulankaas iyo arrimaha ku saabsan mashruucaas. waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka ah in aan loo kala eexan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto. waxaan ugu baaqaynaa deeq-bixiyaasha iyo dhammaan hay'adaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka inay si mas'uuliyiin ah inay mas'uul ka yihiin wixii cawaaqib xumo ah ka yimaada arrintan tixgelinayana mabaadi'da bini'aadanimo ee inaan dhibaato loo kordhin dad awalba taabaalaysan do not harm principle. waxaan ugu baaqaynaa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Hirshabelle inay u gargaaraan walaalahood dhibaataysan dhammaan isku tashadaan si loo xalliyo dhibaatooyinka haysta. wabillahi tawfiiq. halkani waa Hirshabelle TV.